Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow channel-kayga Bare 24 channel. Maanta waxaan kuu soo gudbinayaa ama aan kula wadaagayaa qaabkii aad uga hortagi lahayd ama aad isaga xiri lahayd application-nada ku jira taleefankaaga mar walba update-ka isu dira marka taleefankaaga aad ku xirtid internet ha ahaado Wi-Fi ama ha ahaato data. Aynu sii guda galno barnaamijkeena. Marka hore waxa waajib ah in mobile-ka uu kugu jiro application-ka la yiraahdo Play Store. Aynu furano Play Store-ka. Marka aad furatid oo qaabkan lagugu keeno waxaad ka dooranaysaa qaybta menu-ga ama saddexda xariiq ayaad ka dooranaysaa. Waxaad ka sii dooranaysaa qaybta settings ay ku qoran tahay. Waxaad ka sii dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay auto update apps. qaabkan ayaa lagugu keenayaa qaybta koowaad oo ay ku qoran tahay over any network markaad dooratid ama ay ku dooran tahay oo aad dandahdid waxa application-nada ku jira taleefankaaga waxa u suurtagelaysa in internet walbo aad taleefankaaga ku xirtid ha ahaado Wi-Fi ama data ha ahaato application-nada waxay awood u leeyihiin in mar walba ay update isu diraan ay ka dhameeyaan datada kugu jirta ama Wi-Fi lacagta lagu shubto ee kugu xiran taleefankaaga. qaybta labaad oo ku qoran over Wi-Fi only haddii aad dandahdid inta dooratid aad dandahdid application-nada ku jira taleefankaaga waxay awood u leeyihiin inay update isku sameeyaan marka taleefanka aad ku xirtid kaliya Wi-Fi data kuma jirto tookadan Wi-Fi markaad ku xirtid application-nada ku jira taleefankaaga waxay awood u yeelanayaan inay update isu diraan. qaybta hoose ee ku qoran don't out update apps haddii aad dooratid oo aad dandahdid application-nada ku jira taleefankaaga awood uma yeelanayaan inay isu diraan update oo waad ka xiratay qaybta internet-ka. application-nada awood uma laha inay update isu diraan. waad ku mahadsantahay daawashada clip-kan. haddii aad ka heshay ama aad wax ka faa'iiday fadlan subscribe dheh channel-keena like noo saar qaybta commentiga qaybta faallada hoose commentigaaga inoogu reeb sina share garay si asxaabtaada kale ee ku dhiban qaybtan application-nada mar walba update-ka u soo dhaca ay uga faa'iidaystaan. waad ku mahadsantahay mar labaad.